عليكم meel kastoo dunida ka joogtaan waa walaalkeena Diras Xasan Maxamed page-kayga daawanaysa waa Diras Qaso page official sidoo kale waxaad igala socon kartaa kanaalkayga YouTube-ka ee Diras Qaso channel official muuqaalka toddobaad waxaan ku soo qaadan doonaa wiil dhalinyaro ah kuna noola muddo aad u dheer qurbaha kaasoo wadi jiray baabuurta xamuulka ee u kala goosha gobolada markii dambe waxay iska barteen gabadh qaybta Facebook ama social media ay dadku ku wada xiriiraan muuqaaladan oo kale si aan u soo badiyo fadlan igu dhiirigeli oo page-kayga like saar sidoo kalena qaybta YouTube-ka subscribe saaro kambalelkana furo waayo waxay kaa caawin kartaa si aad ula socotid muuqaaladan soo dhigo mahadsanid qisadani waxay ku bilaabmaysaa sida tan ninkan dhalinyarada muddo aad u badan waxa uu ku noolaa wadannada qurbaha wuxuuna wadi jiray tareenlayaasha ama baabuurta xamuulka qof kastaaba sida uu yaqaano wuxuuna u kala gooji jiray gobolada ama magaalooyinka taasoo u gudbin jiray badeecooyin maadaama uu darawal ka yahay maalimaha ka mid ah ayaa waxay gabadh iska barteen qaybta social media gaar ahaan Facebook sidii aan horeba idinku sheegay waxayna noqdeen laba xiriir yeesha sano soo jiita wanaag iyo kalsoonina ay kala dhex marto labadooda sheekadoodu waxa ay noqotay mid ayna xiise dhigin midba midka kale oo mar kastaba waxay isku qori jireen qoraallo oo inta ugu badan waqtiga way isla qaadan jireen inta uu shaqada ku jiro mahayne inta kale isla qaadan jireen waqti aad u wanaagsan markii dambe waxay ku heshiiyeen in uu soo dhoofo yimaadana dalkii hooyo si ay isku guursadaan noloshoodana ay u noqdaan labadii ka midho dhali dadaalkoogii muddada badan soo jiitamayay markii dambe inanka dhalinyaradaha maadaama uu shaqeeyo fasaxii ayuu ku beegay wuxuuna soo qaatay tigidh wuxuuna yimid airport-ka si uu ugu tago gabadhan muddada dheer ay wada socdeen ama ay wada sheekaysanayeen ninka dhalinyarada maadaama uu waddan kale u safrayo su'aalooyin ayaa la weydiinayaa maadaama uu marayo jeekin ama meesha airport-ka lagu baadho ilaahay uu u fududeeyey oo waxa uu soo koray diyaaraddii isagoona ku faraxsan gabadhan ay muddada dheer wada socdeen in ay kulmayaan kadib gabadhii ayaaba airport-ka ugu tagtay si wanaagsanna ugu soo dhoweysay waxayna bilowday inay farxad geliso intuu airport-ka ka soo socday ay sheeko iyo wanaag uu kala dhex maray reerkooguna way ogaayeen inuu inankani imaanayo kuwaasoo iyagu laftirkoogu soo kaxayntii qayb ka qaatay maalmo yar kadib waxaa dhacay arooskoogii maadaama muddo badan ay soo dhisayeen xidhiidhkan aadka u wanaagsan ee jacaylka ku qotoma gabadhana waxaa lagu qabtay aroos aad u weyn hudheelada ugu qaalisan dalkeenna taasoo farxad iyo wanaag ay ka qaatay waayo wixii hablaha qayrkood loo samaynayo dhan ayuu ka hormariyey oo wax ka wanaagsan ayuu sameeyey farxaddeeduna waxay ahayd mid aan la soo koobi karayn kadib waxay soo raaceen gaadhigii oo waxay ka degeen hudheelka qaybtii lagu talagalay lamaanuhu in ay ku noolaadaan ama ay toddobaadka ay ku dhammaystaan markaas ayuu odhanayaa xabiibi iska yar fadhi wax yar musqusha ayaan tegayaa ayay leedahay ee orodoo iska teg oo iska soo dhammayso hawshaada markii uu isa soo diyaariyey kana soo baxay musqushii uuna soo galay qolkii ayaa wuxuu arkay gabadhii oo sariirta taalla oo meyda waxaana ka dhacay meeshii buuq iyo qaylo akhritaankiina inankii ayaa lagu masabiday oo waxaa la dhigay jeelka taasoo uu la yaaban yahay dhibaatadii meesha ay kaga timid waayo reerkii gabadha dhalay ayaa yidhi gabadhaydu way caafimaad qabtay ee adiga ayaa dilay muddo kadib markii inankii uu jeelkas kaga xidhnaa gabadhii baadhitaankeygii waxa uu noqday ama markay dhakhtaradu baadheen mid ay hor ilaaha u dhimatay uuna ninkani ka dambayn sidaa ayaana inankii ku soo badbaaday jeelkiina kaga soo baxay kuna laabtay waddankii uu ka yimid qisadani hadday tahay mid dareenkaaga taabatay fadlan sheer dheh asxaabtaada la wadaag mahadsanid
Thank you.